kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka tooshka dadweynaha. barnaamijka tooshka dadweynaha alaaba waxaad ka daawataan Demo Show anagoo kusoo qaadanaa hadalhayntii markaasi baraha bulshada ee asbuucaasi ama maalintaasi markaasi ka jirta. waxaan kusoo qaadan doonaa sanad guurada dowlad goboleedka Galmudug 14 Agoosto. sanad walba waxaa loo dabaaldegaa bishaan oo kale ayadoona dadweynaha dowlad goboleedka Galmudug kasoo jeeda meel walba ee adduunka ku sugan yihiin ay u dabaaldegaan. waxa uu jirsaday 16 sano. inka lagu xusay aadkana loogu xusay waxaa kamid ah magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. sidoo kale waxaa lagu xusay dalka Jarmalka. ha ka reebin magaalada Kampala oo si weyn sanadkan ugu dabaaldegeen dadyoga kasoo jeeda dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa taageeraba. shacabka kasoo jeeda dowlad goboleedka Galmudug ayaa markaasi kuwa bishaan oo kale aad u dabaaldega ayagoo calamada calanka Galmudug markaasi kusoo labista si qurux badan usoo xardhada. tiktokerada, fanaaniinta, abwaanada, youtuberada ha kala reebine halka ay ku wada dabaaldegaan ay iskula qaataan kulan qurux badan oo lagu dabaaldegayo 14 Agoosto. waxaan soo qaadanaynaa muuqaaladii ugu quruxda badnaa ama ugu saameynta badnaa ee markaasi balan soo daawano. muuqaalka ugu horeysa wuxuu ka imaanayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo si weyn looga xusay. ka qayb galay xuskaasi ama dabaaldegaasi 14 Agoosto maamulka Galmudug fanaaniin oo kamid ahaa Sikriyo Kobciye, Xamdi Bilan iyo waliba Shaafici Kharandoon. 2021 heestii madaxa ay furan ay ka qaadeen magaalada Dhuusamareeb taasi oo u dabaaldegaya maamulka Galmudug madaxdiisa iyo waliba mas'uuliyiintiisana ay ka qayb galeen. balse heesta kale ee sanadkan magaalada Muqdisho loogu qabtay aniga u dhasho adiga u dhasho dunida dhan iyo dhulka nagala weyn Galmudug 2022 kooxda madaxa ay furan ay kusoo bandhigeen. waxaan ka marnay halkaasi fanaaniin kala duwan oo markaasi kasoo qayb galay xafladda iyo dadweyne badan oo soo buux dhaafiyay. halkaasi heesii laga qaadayna waxaa kamid ahaa heestii madaxa ay furan oo ay dadku jiibta iyo jaantaba la qaadeen. magaalada Muqdisho ayaa si weyn looga xusay sidaad ka aragteenba muuqaalka iyo waliba hoolkii sida ay u camireen. waxaan usoo wareegi doonaa magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda ayadoona dhalinyarada markaasi u dabaaldegaysay ay baabuur kusoo xirteen calamo qurux badan ee calanka dowlad goboleedka Galmudug. baabuur ay kusoo xirteen calanka waxayna dhex marayeen magaalada Kampala. boodooyinka iyo baabuurta ayaa calamadaasi ka lulanayeen. wiilal iyo gabdhaba dabaaldegaad qurux badan iyadoona hool markaasi aad loo soo sharaxay xafladu ay ka dhacday marka laga soo tago dabaaldegyada ay banaanka ku muujiyeen. Agoosto waxaa ku jira dabaaldegyo kala duwan kuwaasi oo ay kamid yihiin dabaaldegyada 1 Agoosto oo maamulka Puntland loogu dabaaldego. waxaa sidoo kale ku jira 14 Agoosto oo lagu dabaaldego dowlad goboleedka Galmudug. ha ka reebina waxaa ku jira 15 Agoosto oo lagu dabaaldego calanka Ogaadeniya. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka tooshka dadweynaha saaxiibayaal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.